kusoo dhawow qaybta shanaad ee diiwaanka Mahad Podcast. Diiwaanka Mahad waa podcast aan kaga sheekayo kuna soo koobo qoraaladeyda. Waxaan diiradda ku saaraa waa aragnimadeyda nolosha iyo magaalooyinka aan u safro, kuwaas oo aan inta badan kaga faaloodo blogayga. Qaybtan waxaan kusoo koobayaa blog aan daabacay bishii June ee sanadkan oo aan uga hadlay safar aan ku tagay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. 7 April ayaan ka mid noqday dad kooban oo loo xushay inay ka qayb galaan koorso transformational leadership ah ee la qorsheeyay in lagu qabto 9 ilaa 20 June magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Koorsada waxaa loogu talagalay madaxda hay'ado dawli ah iyo kuwa aan dawli ahayn ee ku yaala qaaradda Afrika. Waxay noqonaysay markii ugu horeysay ee aan tago Arusha oo ah magaalo inta badan lagu xuso taariikhda Soomaalida. Arusha waa magaaladii uu ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal bishii Oktoobar ee sanadkii 1967 heshiis kula saxiixday madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya Jomo Kenyatta. Heshiiskaas oo lagu soo afjaray dagaalkii shiftada oo ku salaysnaa in gobolka NFD laga mid dhigo Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ma jirto duulimaad toos ah oo Muqdisho ka baxa oo aada Arusha. Sidaas darteed waxaan sii maray garoonka Pole ee Addis Ababa. Waxaan raacnay diyaarad Ethiopian Airlines ah oo ka weyn tii aan Muqdisho ka soo raacay. Waxaan ka degnay garoonka caalamiga ah ee Kilimanjaro fiidnimadii 8 June. Si ka duwan garoonka Addis Ababa ee mashquulka badan, duulimaadkeen ayaa ahaa duulimaadka kaliya ee soo degay waqtigaas. Waxaan isku baranay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ilida garoonka, halkaasoo uu nagu sugayay bas noo qaaday magaalada Arusha. Maadaama uu garoonka ku yaalo gobolka Kilimanjaro, baska ayaan ku tagnay Arusha oo ah magaalo madaxda gobolka Arusha. Basku wuxuu lahaa internet. Waxaan fursad u helnay inaan ku wargelino qoysaskeena inaan nabad tagnay Tanzania. Wadooyinka gobolka Kilimanjaro ayaa ahaa kuwo aad loo dhisay, gaar ahaan wadada aada garoonka diyaaradaha. Si kastaba ha ahaatee, wadooyinka gobolka Arusha ayaa ahaa kuwo aan si fiican u horumarsanayn. Dhowr jeer ayaan wadada laamiga ah ka degnay maadaama uu dhismo socday. Ku dhawaad 2 saacadood kadib waxaan ugu dambeyn gaarnay MS Training Center for Development Corporation oo ah xarunta tababar ee martigelisay kuna taala 20 kilomitir meel ka baxsan Arusha. Arusha waa magaalo qabow, waxaana da'ayay roob inta badan maalmihii aan joogay. Habeenkii qabowgu wuu badnaa. Xarunta tababarka waa deegaan cagaaran oo leh hooy, maqaayad iyo tasiilaadka shirarka iyo tababarada. Waa jawi aad ugu habboon waxbarasho. Maalmihii aan joogay waxaan ku wareegay xarunta MSTCDC. Waxaan tagay Pan Africa House, halkaasoo lagu dhajiyay calamada dalalka Afrika iyo sidoo kale sawirada asaasihii Tanzania Julius Nyerere iyo madaxweynaha hadda ee dalkaas Samia Suluhu Hassan. Halka aan tababarka ku qaadanaynay waxaa loogu magac daray Nyerere. Mid ka mid ah qolalka xarunta waxaa loogu magac daray Soomaaliya. Ka qaybgalayaasha koorsada hoggaanka isbeddelka ama transformational leadership ayaa ka kala yimid dalal kala duwan oo Afrikaan ah sida Kenya, Ghana, Tanzania, Zambia, South Africa iyo Soomaaliya. Waxaan ahaa qofka kaliya ee Soomaaliya ka yimid ee tababarka qaadanaya. Inta badan ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen mas'uuliyiin xilal ka haya dawlado iyo sidoo kale hogaamiyaal hay'ado aan dawli ahayn sida Somali Public Agenda oo aan aniga ka socday. Toddobaadkii ugu horeeyay ee tababarka ee uu bixinayay Dr. Edson ayaa ku bilowday dejinta shuruuc asaasi ah oo ay ku jiraan ganaax qofka soo daaha iyo sidoo kale ganaax qofka isticmaala taleefanada gacanta
iyo kombiyuutarada gaar ahaan xilliga fasalka ama fasalada uu socdo. Waxaan yeelanay hormuud, waqti ilaaliye iyo qof lacagta ganaaxa noo qaada. Lacagta ganaaxyada ayaa markii dambe loo isticmaalay in lagu bixiyo qayb ahaan kharashka dalxiis aan aadnay maalmihii fasaxa. Toddobaadka koowaad waxaa diiradda lagu saaray hoggaanka isbeddelka iyo sida uu uga duwan yahay noocyada kale ee hoggaamin. Toddobaadka labaad ee uu tababarka bixinay Dr. Ramsey waxaa diiradda lagu saaray mowduucyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin hoggaaminta anshaxa iyo hufnaanta, hoggaaminta aragtida iyo fikirka istiraatiijiyadeed iyo mowduucyo kale. Mowduucyadan waxay dhaliyeen doodo adag oo dhex maray ka qaybgalayaasha. Tababarka ayaa lagu soo gabagabeeyey xaflad kooban oo shahaadooyinna lagu guddoonsiiyey. Mid ka mid ah waa aragnimada ugu xusuusta badan waxay ahayd dalxiiskii Materoni Waterfall ee gobolka Kilimanjaro. Waxaan qorsheynay inaan booqano goobaha loo dalxiis tago ee Tanzania, gaar ahaan magaalada Arusha ku yaala iyo meelaha u dhow oo ay ku jiraan Materoni Waterfall iyo Mount Kilimanjaro oo ah buurta ugu dheer Afrika. Nasiib darro, xaaladaha cimilada ayaa noo ogolaanin inaan booqano buurta. Materoni oo qiyaastii 75 kiiloomitir u jirtay xarunta tababarka ku dhowaad 3 saacadood ayay nagu qaadatay inaan gaarno. Materoni Waterfall waxay ku taallaa tuulada Materoni oo ku taalla gobolka Kilimanjaro. Kadib markii la diiwaan geliyey oo aan bixinay kharashka dalxiiska iyo kireynta kabaha caaga ah ee la gashto, waxaan bilownay socodkeena. Hagaheenna wuxuu nagu wargeliyey in socodku uu qaadan doono qiyaastii 1 saac si loo gaaro waterfallka iyo saacad kale oo lagu soo laabto. Roobabka maalintaas da'ay ayaa dhulka qooyay, taasoo caqabad dheeraad ah ku kordhisay socodka. Inta aan sii soconnay waxaan la kulannay dalxiisayaal kale oo u socday ama ka soo laabanayay waterfallka. Waxaan intaan sii soconnay na istaajiyey fanaan dadka deegaanka ah oo noo qaaday heesta caanka ah ee Jambo Bwana. Sidoo kale waxaanu sii marnay dhalinyaro feer ciyaaraysay. Kadib in ka badan 1 saac oo socod ah waxaan ugu dambeyn gaarnay Materoni Waterfall. Biyaha waxay ka soo dhacayeen buur aad u dheer. Waxay ahayd meel aad u qabow, lamana joogi karin wax ka badan dhowr daqiiqo. Waxaan iska qaadnay sawirro iyo muuqaallo si aan u diiwaan gelino booqashadaas naadirka ah. Waxay ahayd mid u qalanta daalkii iyo halgankii dheeraa ee imaatinka Materoni. Materoni Waterfall waan ka soo laabanay inagoo daalan, balse waa aragnimo fiican soo helnay. Intii aan soo soconnay waxaan fursad u helnay inaan aragno buurta Kilimanjaro. Waxaan meel gaar ah istaajinay gaarigii aan wadanay. Waxaan sawirro ka qaadnay buurta. Waxaan isku qancinay inaan ugu yaraan aragnay buurta Kilimanjaro inkastoo ay naga fogeyd. Markii uu noo soo dhammaaday tababarkii, waxaan fursad u helay inaan booqdo magaalada Arusha. Catherine oo reer Tanzania ah ayaa inaga oo 4 ah noo kaxaysay magaalada Arusha galabnimo Jimco ah. Waxaan ka codsaday inaan marka hore tagno ama ay nageyso maqaayadda Kulan oo ay nasiib wanaag si fiican u garanaysay maadaama ay macaamiil u tahay. Markii aan tagnay maqaayadda, Cabdullaahi oo ah milkiilaha Kulan Restaurant ayaa si diiran noogu soo dhaweeyey. Wuxuuna weydiiyey waxaan jeclaan lahayn inaan cunno. Waxaan weydiisanay shaah Soomaali, caano geel ah iyo coffee, maadaama uu waqtigu ciriiri ahaa oo aan rabnay inaan wax ka soo iibsano magaalada. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee Catherine oo Tanzanian ah, Yakubu oo Ghanaian ah iyo Kariuki oo Kenyan ah ay cabaan
shaah Soomaali caano geel lagu cadeeyay. Markii ay weydiiyeen in aniga iyo Cabdullaahi aanu qaraabo nahay, waxaan u sheegay inaanu labadeenaba nahay Soomaali oo aanu xiriir kale naga dhaxayn. Waxay sii yaabeen markii ay ogaadeen in shaaha iyo kafeegu ay soo dhaweyn ahaayeen oo aanan lacag nalaga rabin. Sheekadaas waxay xasuusisay in inkastoo Soomaaliya ay caqabado badan oo dhanka dowlad dhiska ah ka jiraan, haddana inay Soomaalidu leedahay dhaqamo iyo xiriir ay dhif tahay in laga helo dalal kale oo Afrika ku yaala ama dalal ka baxsan Afrika. Inaan la soo kulmo qof Soomaali ah oo Caruusha jooga aad bay ii farxad gelisay. Cabdullaahi wuxuu ahaa qofka kaliya ee Soomaali ah ee aan soo arkay. Hodan Xasan oo xubin ka ah guddiga sare ee Somali Public Agenda ayaa isku keen xirtay Cabdullaahi marsii horeysay ee aan ku kulannay Nairobi oo aan u sheegay inaan u safrayo Caruusha. Ciwaanka maqaayadda ayay ila wadaagtay, sidoo kale waxay ku wargelisay Cabdullaahi safarkayga. Cabdullaahi waxa uu i weydiiyey sababta aan goor hore ugu iman waayay. Waxaan u sheegay inaan joogay meel ka fog magaalada. Waxaan ku dhex lugaynay magaalada oo aan ka soo tukaamaysanay. Waxaan soo cunnay cunnada lagu kariyo jidadka street food. Waxaan raacnay bajaaj. Waxay noo ahayd waa aragnimo ay suuro gelisay Catherine oo galabtaas baajisay ballan ay lahayd si ay noo soo tusto magaalada naguna caawiso inaan wax ka fahamno nolosha maalinlaha ee Caruusha. Waqtigii aan joogay Caruusha waxaan soo kororsaday aqoon iyo aragnimo. Marka laga soo tago tababarka aan soo qaatay, barashada saaxiibo ka kala yimid dalal kala duwan iyo safarada Caruusha iyo Kilimanjaro, waxaan helay fursad aan dib ugu qiimeeyo howlaha iyo arrimaha mudnaanta leh ee aan rabo inaan ka shaqeeyo. Waad ku mahadsan tahay Caruusha qabowgii, casharadii iyo khibradihii aad igu bartay muddo kooban. Diiwaanka Mahad Podcast waxaa soo saara Mahad Waasuge. Waad ku mahadsan tahay dhageysiga qaybta 5. Waa inoo mowduuc kale iyo qaybta xigta ee Diiwaanka Mahad.